كما حكمة بدني كمان أقوم بدني لكن سيدي أن كسر كركورني يأكل دوان يكسبيرينس جنة أنا سيدا dadku wada yaqaan xasan sheekh maxamuud la yiraahdo aabahayna wadaada oo ganacsada oo ahaa hooyadayna hooyo gurjooga ay ahayd aabahay wuxuu dhintay 12 sano anoo jira waxaan ku dhashay magaalada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan 1955 hooyaday soo kurisay aniga magaalada Muqdisho ku dhashay wadaniina oo SYL ka wada tirsanaa hooyaday SYL waxay ahayd gabdhihii dahab ku iibinayay aabahayna wuxuu xirnaa 10 sano Talyaaniga lagu xukumay xabsi daayin kadibna 10 sano laga dhigay wuxuuna soo baxay xabsi ka soo baxay 60kii waxaanu ku soo koray guri aan qabiilka looga hadlin waalidiinta qaarkood aniga Allah u naxariiso hooyadan xasuustaa marmarka qaarkood markay dhar ii gadayso saaxiibadeen waa ila gadi jirtay aad iyo aad yani meeshii aniga mesela surwaal shaati la iibinayo laba shaati aniga saaxiibkay iyadoo naloo iibiyay oo hooyada inoo iibisaan xasuustaa maadaama labadeena ay laba surwaal laba shaati noo iibi karin halihii aniga in loo kala baray ninkaas saaxiibkay oo ahay oo guriga ila imaan jiray oo aan isla socon jirnay marka waxaan ilaahay aan aad ugu faraxsanahay إلا أن سوق جاري سديت وانصر أو تضويت وانصر إن قبل كي يحتى أقول محايا لبيئة أنا قصور كوري وهي بيئة تي قبل وسنجرين بعد محايا لي تضد عن صلاحين أو سوي مد أو ملك استكاكل يمد أو أن معنا مسمينين يوها كون شغال بقول إيو كويس ديتن كي أنا جامعة أمة الصومالية كقرن جبيه معلنا النقطة إلى سجاشة كدولة إكبربوريس معلنا أها burburkii markuu dhacay kadibna dadkii u istaagay bal inay tacliintii soo nooleeyaan haddana ka mid ahaa ilaa aan campaignkii doorashada iyo madaxweynimada aan ka soo galayay oo aan u istaagay madaxweynimadana macallin aan ahaa inkastoo dhalinyaro badan ay arkaan nin dhalinyaro ah anigu ma yiri waxaan shaqaynayay muddo 30 sano ah yaa dowladda u shaqaynayay 30 sano waxay ahayd maya 30 iyo 3 sano yaa dowladda u shaqaynayay سجال صار وحوش شقينا دولة الصومالية أنتي كلنا وحوش شقينا دولة دان لقب بلعب دولة هوسة ومجال دان ورق قارئ الشيء أن عندك عاون جري وعن شقوي كورادين جري كدبنا وحن آلي ماشي اللي هذا كاونتيجا إيري كاونتيجا لقينا هاي مركي اللي مجعبة يكهرنا وحن شقينا ستيتك مركي يعني سوء عزلنا ستيتك يعني دي بقول صار نقطة أنت سبحان أركاي مرك sida u shaqeeyaan ilaa qofka ka fiican waxba laga bartaa markaan go'aansaday inaan siyaasadda galo anigu siyaasaddan galaya yaa nin saaxiib yimid inuu nin fiican tahay Soomaaliyana maanta dadka fiican waa ku yiri waa degdegaysaay mad xoogaa u kaadisid sax marka hal su'aalaan weydiyo waxa ay hadii aad ii sheegto waqtiga ay ku haboon tahay oo aan hadda ahayn meeqa sano kale aan sii sugaa si waqtiga ugu haboonay loo gaaro sanad kale laba kale 10 kale hadii waqti go'aan oo ogtahay uu jiro waa ka aqbalaya 3 sano kale 4 sano ka bacdi meeshaan la gaaraya xaqiiqa meesha sad ka bilaabi kartaa laakiin hadii aan waa weydi markuu wuxuu dhahay ma garanayo dhahay waqti ay ku haboon tahay deen waqti aan waa inuu bariyay aan la ogeyn ma suuli kartid marka meer uma fadhiyi kartid waqti inuu imaanayo in kale aan la ogeyn marka daad miday ahayd nasiib wanaag 3 sano aan shaqeynayay laba qof oo Soomaaliya ka daba geeyo aan shaqooyin geey laba qof oo Soomaaliya yaa iga faa'iiday ma sha Allah kursigaani daal iyo raaxo muxuu leeyahay bal dadka u macnaa hadii lagu raaxo maxaad ku macnaa leedahay wallahi kursigaani daal uu leeyahay raaxo ma laha wax raaxo ma laha daal dhafar saacado badan walwal marmarka qaarkood cabsi oo aad naftaada u cabsanaynin 10 milyan oo Soomaalida aad u cabsanayso ama u turayso ama u walwalayso oo adoo saacado dheer shaqeynay marka qaar ku sariirta dad tagta adan hurdi karin haddana yaa ku soo maray marka horta raaxa ma laha laakiin dhinaca kale raaxo u leeyahay raaxada kale u leeyahay waxa waaye achievementska marka wax gaarto wax xaqiiqo marka qalbigaaga ku qanciso qof Soomaaliya dib haysta ayad ka qaaday marka magaca Soomaalinimada waxbaad ku soo kordhin magaad dareento raaxaysiyo leeyahay waxa kale oo rabaa kursigaani kursi de oo la shari loo soo raaxa doonto ma aha kursigaani qofka imaanaya ay horta ama soo raadsanaya walaalaha badna iga horeey ama kuwa dambe imaan doonaba waa qof anigu intaan qabo raadinayo fursad dadka Soomaaliyeed
aniga malaayiinta soomaalida ay joogtaahi wax badan ma dheeri nin soomaali oo caadi oo shalay caadi ah laakiin hal midaan dheerahay fursadaan helay dadka soomaaliyeed waxay isiiyeen fursad ah inaan muujiyo wax aan qaban karo laakiin kuwa iga waxqabad fiicana laga yaabaa inay joogaan oo madaxtinimada aanay u tartamin oo fursadda aanay helin marka aniga waxaan dareemayaa dadku inay abaal i gashadeen oo ay kalsooni i siiyeen oo ay fursad i siiyeen aan ku muujiyo bal haddii aan wax qaban karo inaan wax qabto marka inaan ka abaal dhaco ma doonayo abaalkaasi waxaan aad iyo aad committed oon ku dadaalayaa dadku in ay dareemaan ay dhahaan nacam muddadii yaradoo meesha jooga allay leh wixii waxbuu qabtay wax badan ma aha waxbuu dhaqaajiy waxbuu qabtay in la yidhi aadaan u jeclaa